hadda qofka markuu soo waco su'aal badan ma warsanaya waxay dhaayaan meesha ameen geenaysan maalin wacan oo wanaagsan daawadayaal meel wada joogtaan asxaabta nagu xiran ee naga daawanaysa bogagga iyaga kala gedisan Facebookga Instagramka Twitterka iyo waliba YouTubeka TikTokga aan ka marayno idin salaamay mar kale iyo waliba Konza City company-ga Mapsa Group Agency Limited maanta waxaan maraynaa phase-ka 33 koo ayaan ka soo bilownay 33 ayaan maraynaa waxaan dareenkiisa weydiinaya agaasimaha guud dadaalka guud ku soo bixiyay in koo wax uu ka soo bilaabo marka hal laga soo bilaabay meel mar 33 la maray farqi weyn baa u dhaxeeya dadaal iyo juhdi baa galay marka waxa weydiinaya waqtiga xilliga waxay dadka dhigi jireen iyo maanta waxa dareenka dadka waxa iska bedelay ayaan weydiinaya soo dhaw agaasimo asxaabteena nasan marna waa maasantahay bismillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan waan idin salaamay waa Abdul Aziz Mahmoud alxamdulillaah maanta oo July oo tahay 2025 qaybtii 33 aan furnay Salima Garden oo lagu talagalay deegaanka waqtigii aan furaynay qaybteeni koowaad 2023 June ayay ahayd feeskii koowaad aan ku bilownay wuxuu ku koobnay 68 boos waay dadka badi marka meesha aan geen jirnay waxay dhigi jireen company cusub ayaa tihiin seelidun ku aaminaya su'aalo badan oo aan dhihi karo qofka oo maanta wax badan warsadeen ayaa jirto oo qaar oo la yaabi karo laakiin anima lama yaabin waayo qofka macaamiil marka meel keentid laazimo xaq wuxuu u leeyahay inuu su'aalo kasta uu ka warsado anaka Mapsa Group Agency Limited waqtigaas dhulkan Konza waxaa idinka iloobay waxaan gadanay 2018 iyo 2019 afar sano ka bacdi ayaan furnay markii aan isoo diyaarinay 20 qayb ayaa noo ahayd markaas koow aan bilaaweynay haddana 50 qaybood ayaa leenahay maantana qaybtii 33 ayaan furnay 17 qayb kala wili noo dhiman iyo tii Malindina waan soo furnay tii Nyanyuki ayaa noogu xigto aan furi doonaa haddii Ilaahay na gaarsiiyo iyo tii kale oo Makindu iyo Kajiado waqtigaas su'aash dadkana warsan jireen badi hadda nama warsadaan waayo company-ga waa la aaminay waa company-gii koowaad aan dhihi karo maanta proudly oo Soomaali ah oo beeniyay wixii beenta laga sheegi jiray dhulka dhan oo Mapsa Group Agency Limited oo waxooda dhan isku soo cadeysay waa company koowaad aan dhihi karo oo dhul sharciyeysan oo waraaqda shakhsiga dhan aan soo diyaarinay meel masaajid aan ku diyaarinay shopping center playground garden swimming pool meel 10 acre loogu targalay oo lagu ciyaarayo lagu cunteynayo lagu shaahiyana kulli qabuurihii wixii dhan ayaan soo sameynay dadkii waxaas markaas waxaan dhihi jireen waxa sheegaysiin wax jira miya waayo kambaniyal badan ayaa soo baxeen hal qayb ayaa la furayaa ballan badan ayay qaadayaan den shaqadii way joojinayaan su'aasha guudna la warsan jiray taas ahayd iyo sharciga waxaan dhihi jirnay yaa nala aaminin anaka soo company cusub soo minhiino sharcigiina qaata waxaad soo baarta markaad soo hubsatid ayaa wax kasta aan kala gadanaynaa tan kale waxay dhihi jireen markaad intaas hadda maamaa jirto example oo soo qaadanaya dibadda joogta phase 1 ilaa phase 9 ayaan dab socotay sababta markaan wareystay waayo waxay dhahdeen kambaniyal badan ay jiro oo soo baxeen oo waxay furayaan waxay ballan badan laga qaadaya qaybta markii la dhameeyna way kala ordayaan intaasoo dhan idinka idin fiirinaya ee dhahday then phase 9 markii la imaaday 7 boos hal mar naga qaadatay waayo waxay dhahday inaad dad run sheegaysa aad tihiin inta kale ayaan uga rabay xataa aan kula hadlayo intaasoo qof aan soo wacday oo dhaheen maasha Allah dhulkiin si fiican uga helnay waa company koowaad oo Soomaali leh oo waxooda dhan 100% aan dhihi karo oo sax ah hadda dadkii sidii hore ma ahan zaid ayaan noo aaminaan qar waxay dhaheen dad wax haysto ayaa wax looga dari karaa anina waxaan dhihi jiray dhul sharciyeysan ayaa wax looga dari jiraa haddana dadkii waa nooga dareen alxamdulillaah qaybtii 33 ayaa maroona hadda qofka markuu soo waco su'aal badan ma warsanaya waxay dhaayaan meesha ameen geenaysan hadda qaybtii Malindi waxaan soo furnay 2 days ago 20 boos ayaan gadnay waxaan laba qof bes ayaa soo fiirisay inta kale ma soo fiirin waa aaminitaanka dadkii ayna aamineen maantana waxaan dhihi karaa macaamiish ayaa meeshana soo gaarsiiyeen alxamdulillaah mar walba waa u mahad celinaa la'aantiina meesha ma soo gaari lahayn hadda wax badan ayaa u isbedeleen qof uu soo waca meesha waa la geynaa wuu soo arka qaar xataa waqti ma qaadanayaan hadda kula hadlayo phase 29 ka yaraa noo imaaday lacagtana wuu shubtay ofisku wiil lama aadin
risiid looma jirin taasna waxay ogtinaysaa aaminitaanka oo mabsa la aaminay waana waxaa ka dambeeyay macaamiisheena dhan haddii ay maanta noo soo garab qaban lahayn meesha ma soo gaar lahayn ilaahayna wax dhan wuu noo fududeeyey waana shaqadeena wada soconaynaa wixii ballimaanta aan qaadnay dhan waa ka soo bixi doonaa anaga shaqadeena guud horaan waa soo sheegnay waa danta dadka guud ayaan danaynaa qof wax heeso yaa heesanin waxaas dhan waa fududaynay haddana alxamdulilah ilaahay meesha wuu soo gaarsay idinku waa soo gaarsiiseen waxyaalo badan ayaan idin dhiman weli hadda booska aan soo galnay waa 1250 boos waay targetkeena waa 10 boos waan huba waan gaari doonaa with your help dhammaan waxaa idin leenahay hadda kusoo dhawaada qaybtan qofkii u baahan waa lagaa gadayaa face-to-face waan furi doonaa oo commercial haddii ilaahayna gaarsiiyo dhammaan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada waayo Mabsa Group Agency Limited anagoo dhan baa wada leh